dembi ilaahay baynu ka magan galnay qofku hadduu galo nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ta ugu yar waxa u dhigantaa qof hooyadii xaaraan ugu tegey walciyaadu billaah muxuu yahay dembiga intaa laga weyn dadkiinnuna way galaan waa dembi kabaa'irta ka mid a kabaa'irtood maqashoomaa dembiyada waaweyn marka qofkaasi hadduu dembigaa galo halka ugu yar inta ugu yaree uu ka galo waxa u dhigantaa qof hooyadii wax ka dayey soo khatar maaha dee waa dembi weyn oo khatara dembigaasi muxuu yahay zinadii maaha zinada maaha mid kale wey dembi kale kabaa'irta ka mid a soo xasuus waxay dadku cunaan weeyaan oo kabaa'irta ka mid a dadka cunaan hadee waa aduu maaha laakiin isku daday jazakallahu khairan jazakallahu khair allah yaxfadka ya rab soo dhawow dad nabigu wuxuu dad haddaad aragtaan aad ilaahay xasuusanaysaan maxay yihiin dadkaasi waa ahlu jannaha marka maxaa loo yaqaan inuu marka adduunkan ay joogaan maxay yihiin wadalka diinta ka soo xidhay nuuraya laakiin magac bay u naqaanaa inagu maxaan idhahnaa qofkaasi waa ahlu janna may magac kale waa weli ka mid awliyada ilaahay hambalyo marka waa awliyada ilaahay marka sifooyinka lagu yaqaano waxaa ka mid a inaad ilaahay ku xasuusato markaad aragto laba sifo oo markaa nebigu yidhi ilaahay rasuulkiisuba way jecel yihiin labadaa sifo ma garanaysa nin baa ku sifaysnaa asxaabta nebiga ka mid a labadaa sifo ma soo dhodhoweyn kartaa ma garan kartaa labadaa sifo waa ninka wadaadka marti qaaday asxaabiga markaa sifadu maxay tahay yani qofku wuxuu ku sifaabi karaa deeqsinimo geesinimo deeqsinimo siiyey markaa waa sifo deeqsinimada talabaadna talabaad ma garanay ku soo dhaweynayaa dhowr sifaan kuu sheegaya waa qaar ka mid ah mid waa dulqaad iyo ukaadsiimo dulqaad iyo ukaadsiimo deeqsinimo geesinimo afartaa midun ka mida wey afartaa laba ka iyo deeqsinimo iyo deeqsinimo labadii hore inaad qaadatay ahayd nasiibkii hore weeye khalaas dhaxba male laakiin waad isku dayday labadaas sifo waan furaynaa mar haddaan dee sheegnay labadaas sifo nebigu uu sheegay waxa weeyaan al-anaa'a iyo al-xilmu wal-anaa'a xilmiga waxa weeye dulqaadka qofku markuu dulqaad leeyahay iyo qofku markuu leeyahay dadnimada iyo inuu wax u kaadiyo oo uu hubsado hubsiimaha labadaas sifo ilaahay iyo rasuulkiisa way jecel yihiin nin baa wuxuu yidhi waxaan waa bariistay saaka anigoo fitnadana jecel xaqana necab muxuu xaqu necab yahay muxuu waa maxay wax xaqa oo dadku necab yihiin ma jiraan wax xaqa aniga xitaa anigayga iminka jooga ama adiga ama dadkeenna oo dhani wixii wanaagsan baad wax xaqoo aynaan marnaba kama baxsan karno haddana weyn karaahiyeysanaa dadku dariiqa wanaagsan buu necab yahay xagga shaydaanka u beydha may eegtaa wax xaqa oo gaal iyo muslim cid walba ku dhici kara haddana dadku way necab yihiin maxay waxaas hortaada u kaadi waxaad sheegaysaa gabadh ka mida xaasaskii rasuulka ood maqasho maa hooyooyinkii mu'miniinta loo yaqaanaa waa mid ka mida dumarkii nebigu qabay oo aan hinaasi jirin hinaaskaasoo gabadhu waa lagu abuuro hinaas iyo masayr bay leeyihiin dumarku ilaa xaawada waad garanaysaa hooyadeen hinaasku waxtay ku abuuran dumarka markaa waxaa jirta gabadh aan hinaasi jirinoo nebigaa u duceeyo ilaahay hinaaskii iyo wixiiba waa ka saaray maxay ahayd talo gabadha khadiija soo dhaweysay wallaahi boqolkiiba 80 gabadh kale weeye laakiin mid kale sheeg khadiijo baa tidhi waad saxsantahay waay jazakallah khayran hambalyo waad soo dhaweysay khadiijo may ahayn nin ayaa markaa nebigu wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam ninkaas camalkaa hadduu la yimaado waxa weeyaan laba arrimood baa loo qoraya munaafiq maaha beri buu munaafiq ka yahay naartanan beri buu ka yahay cadaabka naaradu waa laga xoreeyey qofkaasi markaa camalku la yimi ayaan rabaa maxay tahay salaada sidee buu leeyahay waa runta waa shanta salaadood ee faralka weeye laakiin waxbuu ku daray dadka kale aanay ku darin isagu
ما صلاة الحديد بلغ ربي وصلاة أصلا هكجد من القدر صلاة ليش سنو قدر معنا يا سنة ما أرتني كاسي سوي وانينا دونا سقف كده صلاة فرالك سنة قدر لكن صلاة دي بو شنطة صلاة ده فرالك أيو آدو إلالي مركا إنه آدو إلالي علامات بينو شيء سقف كاسي دينو إلالي صلاة شنطة صلاة ده فرالك مركا محمد قرنس علامة وحكي علي شمعة مركا هو شمعة إلا قرمس وقاعد إلا صلاة صباحنا مش شنطة صلاة بشمع بكنت كده وسحسن تاي لكن سيدو شمعة كوسو قاعد مرة سيدو شمعة كوسو قاعد ما حلقة الحوكي ما حق هروكي سيدو كوسو قاعد حلقة هروكي إلا قرمة إلا تصبح ودو ده هي أرصاصي ورتهديد أساسي هنبلي ورتوكسيني هو سؤال شد بقول كيف استيتم وات صحدي لكن وحسوق قاري الله أكبر تكواد إمامك الله أكبر تكواد أيو مرة البيت هاجي يسوق كما بدأ عبا أفرت مع الموقف كسيدة سمية منافق نماها نار تنوال لقى بريالة سو عجيب ما إلهي نجيله دمان وأفرت عشوك اليمين ما ين الشيطان كنا وقلانيه